walaal ku salaamay waxaan kaloo salaamayaa bulshada dhageysanaysa meel walba ay joogaan doorashada waa jadwalkii sidii loo dejiyay oo dastuurka uu sheegay iyo qaabkii dastuurkeena uu qoray ayay ku socdaan hanaankii la rabay ayay ku socdaan inkastoo oo runtii ahayd 7 bilood ka hor in la bilaabo laakiin ma waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha oo runtii hadda hoosh aad hufnaanta u wado maanta 6 kursi la doortay aqalka sare oo gobolada waqooyi tartan oo live ah korjoogta lahaa buuq aan lahayn baa dhacay macna noocee ayuu tartanka bixin karaa wax la filayo ma aha doorashada waqooyi sida noqon karto walaal doorashada waxa la rajeenayay waxa xukuumadda oo hogaamiyo Maxamed Xuseen Rooble la rabay sida hadda ay ku socotay sidii Hirshabelle ku dhacdo kale qaabka uu rabo oo ummadda Soomaaliyeed rabaan daafurnaan cadaalad miraayadaas laga dhax arko nin kasto muwaadin Soomaaliyeed wax uu dooran karo asaga la dooran karo oo sanadtiisa aysan ahayn hebel baa ay wato iyo hebel baa ay wato sheekada hebel baa ay wato hebel baa ay wato waa tii maanta ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku arkayeen inay jirin runtii dadkii aad iyo aad ayay ugu soo bogaadinayaan habka iyo qaabka uu wado xukuumadda korjoogtada uu ku hayo Maxamed Xuseen Rooble ummadda waxa la rabaa kaliya cadaaladaas waxa la rabaa kaliya weelkaas ninkii xaq u leh inuu helo ma anaga wax wato dhamaad dirshada laga wada baxay waa maasanta saameynta madaxtooyada Soomaaliya ama madaxweyne Farmaajo ee doorashada waqooyiga ma muuqan waxaana jira walaac iyo cabsi xoog leh oo sanadii la soo dhaafayba taagnaa oo aynu faragelin karo in dad isaga rabitaankiisa ay soo bixi karaan isagoo kaashanay ra'iisul wasaare ku-xigeenka maxaa ugu wacan baa aslada in la waayo ama ay maanta dhaqan gali weysay riyadii maalmaha socotay ama hadal hayntii waayadan ba soo taagnay walaal waxaan ku sheegay xukuumadan oo runtii madaxweynaha mudxilidkiisa dhamaaday waxa uu raadinayo oo mar walba uu ku haminayo hamigiisu ahaa in uu soo saarto niman asaga uu wato xoog daniinta loo baxshay uu rabo asaga oo runtii uu isku haleyn karo oo ku xisaabtami karo in cod iyo xanaan asaga tiim uu wato muddo uu ka shaqeynayo aad iyo aad u fog oo maalinta kursiga qabsada ilaa ay hadeertaanbo waxyaalaha oo runtii asaga aad ugu haminayo waxay aad inuu soo saarto niman asaga uu leeyahay waxa la isku dhacay oo dhibaatada ugu horeysay oo madaxweyne ra'iisul wasaarihii Xasan Cali Khayre ay qayb ka ahayd in asaga la isku qabashaday oo watuu ku baxay Maxamed Xuseen Rooble isla asagoo hadana la isku qabto yiri maya xoog daniin baan diyaarsaday dad baa ay diyaarsan jadwalkan ku shaqeey iyo kuma shaqeynayo waxaan ku shaqeynayaa dastuurka iyo qaanuunka iyo waxa dadka ummadda Soomaaliyeed ay rabaan problemka ugu weynaa horta oo isfahanka weynaa oo meesha ka dhashay waa inta Maxamed Xuseen Rooble waxa uu sameeyay runtii wax aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed ay filayeen ee ka sugayeen inuu sameeyo madaxweynaha mudxilidkiisa dhamaaday iyo tiimkiisana oo runtii ka shaqeynaya muddo fog oo loo baxshay xoog daniinta waa xasuustaa xataa Mahdi Guuleed markuu joogay Puntland oo tuu dhahay doorashada ugu koobaadan qaadena waa aragteen oo yiri beedhab wax ka dhacay waa aragteen oo yiri hadal qabso u qaatay galmudug wax ka dhacay waa aragteen oo yiri wax ka dhacayeen Hirshabelle waa aragteen oo yiri doorashada qaabka aan u soo roogkooda aan ku soo wada qaad taas waxay ku tusaysay inay qorshe diyaarsadeen ee rabeen inay wareeg koowaad ku soo baxaan oo tiim la wato laakiin taa ilaahay mahadiisa Maxamed Xuseen Rooble xukuumadda hogaaminaya waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ugu mahadnaqayaan hanaanka furnaanshaha oo maanta hami walba qof walba oo maanta hami leh uu soo galay inuu wax uu dooran karo sababta waxa dhamaatay hebel baa ay wato iyo hebel baa ay wato iyo niisa ay wadato iyo fahda ay wato iyo tiim ma gartay waa maasanta Mahdi Guuleed meeshii uu ka hadlo waxay tiyaatarka qaranka meelaha qaar oo ay doorashooyin ka dhaceen sida Jowhar iyo Muqdisho waxa saameyn xoog leh wajahaya xubnaha villa Soomaaliya dhinacooda lagu tirinayo ilaa heer ay gaaraan in isbar yeelaan maxaa looga cabsanayaa oo ay wax laga cararo u noqotay in murashaxiinta qaar ay dad ku tiirsan madaxtooyadu noqdaan oo ay wax loo qariyo u noqoto baslada walaal waxa meeshii waxa socda iyo dhibaatada socota iyo mashaakilka Soomaaliyeed socota iyo madaxweyne mudxilidkiisa marba warqad iska soo qoraayo sharciga dastuurka aan la fiirinaynin 4 sano uu joogo wax uu sameeyay dhibaatada uu sameeyay tiiba wali laga soo kabsan marka la ku soo noqo tiiba wadanka waxay noqonaysaa kala qaatibilaha la taagan yahay
sidan keliya hadday wax ku dhamaadaan ilaah baa mahaddiisa leh, iyadoona dalkii dagaal dhicin, iyadoona dalkii si loo noqon, iyadoona dalkii burburin. waxuu ka shaqeynaya waad aragtay dhexdaas ciidamada badbaado qaran waxa meesha dhacay. ilaah ra-iisul wasaaraha runtii ilaahay ugu mahadnaqaya oo runtii arrinta xakameeyey. waxa ka dhalan wax dhibaato aad u fool xumo badan. waa mahadsanta khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ma laga dareemayaa saameyn ay doorashadu ku leedahay ama wax saameyn iyo dhaawac ay doorashadu u geysatay? walaal horaan kugu sheegay shaqo isku leeyihiin jira xukuumadan dastuurkaas siinayo 103 inuu hogaamiyo doorashada hogaamiyo uu noqdo hogaamiyaha runtii oo dastuurka siinayo inuu wadanka ka baxsho dhibaatadan oo maanta ku socoto dalkii ra-iisul wasaare runtii meel fiican buu wax ka qabtay. waad aragtaa xataa hadal soo jeedintiisii markuu ka hadlayay hadal soo jeedintii aqalka sare wuxuu yidhi waxaan u baahanahay gudoomiye la doorto aqalka sare ee soo doortaan oo wadankii aan la xisaabtamo anna ila xisaabtamo. micnaheedu waxay tahay waxaa la rabaa hogaan wadanka in loo qabto dastuuriyan hadda wadanka dastuur madaxweynaha muddaxileedkiisa wuu dhamaaday 91 qodobka daad fiirisa wuxuu ku ekeed February ilaa haddeertaan xukuumadda xilgaarsiinta ayaa wadanka hogaaminayso. waxaa la rabaa waxay tahay in xildhibaano ay soo baxaan gudoomiye la doorto wadanka uu yeesho meel laga hago. waa maasanta cabdi xaashi gudoomiyaha aqalka sare waxa uu noqday senatarkii ugu horeeyay ee gobolada waqooyi 4 sano la soo dhaafay. waxa uu dagaal siyaasadeed oo culus kula jiray madaxtooyada Soomaaliya ilaa uu hurdada la waayo sanadii ugu dambeeyay. cabdi xaashi doorashada markaad eegtid iyo saaxiibadii ku tiirsanaa iyo dagaalkii uu ku soo jiray meeshii uu rabo ma gaaray baaslada. cabdi xaashi nin muwaadin Soomaaliyeed oo ah wuxuu dalka ka badbaadinayay god in la geliyo. cabdi xaashi waad aragtaa intaas maalintii la qabtay xukuumadan ee gacanta ay ku dhigtay aqalka sare dhawey baabiisay way diideen. cabdi xaashi wax badan buu hor istaagsanaa uu yidhi sharciga dastuurkaan ilaalino adiga waa lagu doortay annagaa ku doorane madaxweyne muddaxileedkiisii dhamaaday waxaan rabnaa wadanka aan qor isku dhiib waay aan hagaajinay maya ma jirto wax dastuur lahayn ma jiro wax qaanuun lahayn male shuruuc badan baa la baasgiray oo aqalka sare la marsiinin oo golaha shacabka oo toos iyo asaga uu saxay oo xataa u baahan tahay in dib loogu noqdo sababtoo dastuurku wuxuu dhigayaa shuruucda ka soo dhammaato golaha shacabka waa in la geeya aqalka sare asna ay ka doodaan fiiriyaan filtraareeyaan wixii qaldan ay eegaan hadduu qalad jiro dib ugu soo celshaan tii waa la diiday. waxaa la ansixiyey waa aragtay hay-adihii musuqmaasuqa gole adeeg garsoor waxaa la ansixiyey shuruuc badan baa la baasgaray oo aqalka sare aan la geenin waxaas oo foqul qaanuun oon sharci ku dhisneen. maxkamadii sare la soo magacaabay oon meelna la geenin xeerdaalii guudaa la soo magacaabo asaga soo magacaawday. wax badan baa qaldan oo aad u qalday madaxweyne muddaxileedkiisii dhamaaday runtii dhibaato badan buu wadan ku hayay. ilaah baa mahaddiisa leh maanta in aqalkii sare waqooyi maanta ugu dambeysay oo uu marayay meesha ugu dambeysay. inta yar hartana waa tuu ra-iisul wasaaraha haduu yidhi Jubbaland iyo Galmudug inta ku maqan bal soo dhamaystiray Puntland